shirarkii istaba joog ahaa waa qaybtii sideedaad ayaynu ku soo qaadan doonaa waana dhextaalkii toddobaadka geedi socodkii nabadeyntii Soomaaliya daawadayaal iyo dhageystayaalba aniguna waa libax barqiye halkay ay noo joogtay ayaynu ka sii amba qaadi doonaa waana qaybtii saddexaad waxa aynu duubaynaa hadii eebedma insha Allah sida uu la socda isaga oo lagu yeero shirkii nabadeynta qaran ee Soomaaliya marna loogu yeero shirkii Djibouti haddaba shirkani wuxuu lahaa kulana istaba joog oo lagu qabtay magaalada Caarta ee dalka Djibouti intii u dhaxaysay 20kii Abriil ilaa 5tii May sanadkii 2000 shirkani uu ka duwanaa shirarkii dib u heshiisiineed ee hore loogu soo qabtay magaalooyinkii faraha badnaa maadaama ay si ballaaran uga soo qayb galeen hogaamiyayaasha bulshada rayidka ah ee aan hubaysnayn waxgaradka hogaamiyayaasha beelaha iyo hogaamiyayaasha diinta iyo xubno ka tirsan ganacsatada Soomaaliya waxaa la dhamaystiray bayaankii Caarta iyada oo la dhisay dawlad qaran oo ku meel gaadh ah waxayna heshay aqoonsi caalami ah taasoo boorka ka jaftay kursigii ay Soomaaliya ku lahayd qaramada midoobay iyo caalamka mar kale dawladii Caarta waxaa ka hor yimid dhaqdhaqaaq mucaarad ku ahaa dawladda kaas oo la oran jiray golaha dib u heshiisiinta iyo dib u soo nooleynta Soomaaliya oo la magacaabay SRRC oo ay ku midaysnaayeen qabqablayaashii dagaal ee ka soo jeeday gobolada Soomaaliya mar kale shirkii sagaalaad ee dib u heshiisiineed ee Soomaaliya haddaba si loo heshiisiyo dawladii Caarta iyo golihii SRRC urur goboleedkii IGAD wuxuu bilaabay geedi socod dib u heshiisiineed oo qaran ka hor intii aysan dhammaan waqtigii ay haysatay dawladii Caarta waxaa geedi socodkaas ka soo baxay shirweyne dib u heshiisiineed kaasoo la magac baxay shirkii dib u heshiisiineed ee qaran ee Soomaaliya laguna qabtay magaalada Eldoret ee dalka Kenya bishii Oktoobar 2002 qodobadii ka soo baxay shirweynaha waxaa ka mid ahaa in la dhaqan geliyo xabad joojin waxaana saxeexay 24 hogaamiye kooxeed kadib waxaa lagu dhaqaaqay in la sameeyo nidaam federaal ah iyada oo wax laga bedelayo nidaamkii dawladeed ee lagu soo sameeyay magaalada Caarta ee dalka Djibouti la soco qaybaha dambe hadii eebba idmo insha Allah oo aan soo deyn doono